عاوي الكيا حتى وعندنا سومالي سبيشاليستي هوسبيتال هذا ما أنت الكيا الإحرائي أفك أساسي وين السيكل الجديد حجوجا سومالي سبيشاليست هوسبيتال جوجا تفرك كاس جديد دقدق طيب أنا سانا وراي لك حنون وروحو عن الله حانك أيوة السلامي أصحابي تيك توك سأولنتين وإيجادين وصوكس مستحوغا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دوادا صاحب بيال هالكل وهلال برودكشن حابة أنا سانا وراي لك حنون وروحو عن الله حانك جريب أنا دبي هستا دعيب إيا waxaana muuqaalkeenan ku eegi doonaa mowduuc aada xasaasi u ah kaasi oo ah ma bannaan tahay in ilkaha la xirto muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada ku arkeenay dhalinyaro caan ka ah baraha bulshada kuwaasi oo ku bartamaya xirashada ilkaha iyaga oo mooda in haddii ilkuhu ay xirtaan ayba ka dhigan tahay inay heleen qurux aysan horeba u haysan صبت والي على ذكر والي تومي كراله iskabada baratale waxaa haddana aada u soo bedelayay cisbitaalada xayeysiinta u sameysanaya inay soo kordhiyeen xiridda ilkaha iyo wixii la halmaala taasi oo ka dhigan in ayba noqotay fursad dhinaca ganacsiga ah oo u muuqata mid guulaysatay Somali كيا حتى وعندنا سومالي سبيشاليستي هوسبيتال وعندنا قيبتي الكها حجوجا سومالي سبيشاليست هوسبيتال جوجا تفرك كاس جديد دقدق maadaama ayba yar tahay inta fahansan cawaaqibka ka dhalan kara arrintan iyo diilteena waxa ay kaga dhigan tahay loo dhuubo xarago iyo qurux darteed waa shay xaaran oo banaanay laakiin ilkaha in la qorqoro la dhuubo la yaryareeyo lama ogola haddaba ujeeddada muuqaalkeelan ma aha la lid ku lahay dhallinyaradaas waxaynu ugu tala galnay in maadaama dhallinyaradu ay hormuud u yihiin dhalinteena in aynu ugu nasteexeelo muuqaalkan si iyaguna ay uga digtoonaadaan khatarta arrintan ay leedahay ilkaha oo la dhuubaa ama la qoraa ama xitaa la bixiyaa iyada oo qurux laga raadinayo xaqiiqatan waa arrin aan bannaaneen oo diilteela ay inooga digayso iskabadaa in biro lagu xiro waxaase diilteela ogashaha oo keliya in ilkaha la bixin karo marka uu jiro xanuun ku dhaca ilkaha kaasi oo sabab u noqon kara in qofku uu wajaho khatar dhinaca caafimaadka ah balse waxaa taasi beddelkeeda la ogoleen oo diilteynu ay ila faraysaa inaynu ka joogno in ilkaha aan biro lagu xiri karin ama aan la dhuubi karin ama xitaa aan la qori karin ama xitaa aan la siibi karin waa kan sheekh xasaan oo ka mid a culammada soomaaliyeed ee arrintan ka hadashay oo sharaxaya waxa diilteynu ay kaga dhigan tahay marka qof muslim ah uu arrintan oo kala sameeyo qaarkood wixii iliga ee loo saaro ama loo qoro ama loo dhuubo xarago iyo qurux darteed waa shay xaaran oo bannaanay wixii loo sameeyo cillad caafimaad iyo foolxumo xad dhaafa oo aan muctaad ahayn oo bulshada meesha ku nool aan dhaqan u ahayn oo ka bedelan ilkahaadii baa xad dhaaf bay noqdeen ummadda meesha joogtay oo gobolkaana ceeb ku ah kana baxsan sidii dhaqanka u ahayd bini aadamka markaas waa cillad caafimaad weeye xanuun bay kugu hayaan matalan cuntadii baad ku cun lahayd matalan wixii qurux iyo isqurxin iyo xaraag ku saabsanna ma bannaano wixii cillad caafimaad la xidhiidhana waa bannaan yahay gabagabadu waa intaa asal masalo waa masalo dhibadan la iska ilaaliyo lacnad baa ka taagan almutafallijaad lilxusni wixii qurux ku saabsan iyo xarago ilka hadda la xidho ama laysku dhajiyo ama la kala fogeeyona xaragay adduunka maanta u badan yihiin cillad caafimaad ma aha wallahu aclam sheekh maxamuud maxamed oo loo garan og yahay sheekh shibili ayaa dhankiisa waxa uu bulshada uga degayaa khatarta ka imaan karta arrintan waxaana uu carabka ku adkeeyey haddii aysan jirin xanuun dhinaca caafimaadka ah oo ilkaha ama caafimaadka qofka halis ku noqon kara inaysan bannaaneen in ilkaha la xiro ama la qoro
iyada oo qurux laga raadinayo. saa'ilka xiga oon filayo midka 15aad inuu yahay wuxuu leeyahay ilkaha birta lagu xirtaa ma bannaan tahay fanaxda ma iska xiri karaa anigoo ilkaha isku dhajinaya ilkaha birta lagu xidhay dee sababta loogu xidhay ku xidhanta carabtu ama culimmada markay hadlayaan carabtu tabriidul asnaan bay yidhahdaan ilkuhu dabcan dadku iyagoo yaryar markay dhashaan ilkuhuna waa yaryar yihiin markay ilkuhu dhacaan ay soo baxaan kuwii soo baxay kuwii hore kuwa ka waaweyn baa soo baxa markay soo baxaanna booskii baa ciriiri ku noqdoo la ekaan waaye way iskor fuulaan marka ama qaarkood iyagoon dhicin baa intii la ridi waaye markay jilceen baa kuwii kalena ka soo hoos baxaan foolxumana waa yeeshaan isdulsaarkaana way yeeshaan lakabyo cuntada iyo waxyaabo badan intay kaydsadaan waxyaabo ilkihii durba dhaawacaya keena way keenaan marka qaarkoodna xanuun way keenaan mar haddii ilkihii isfuulfuulka iyo wax lamida ay yihiin oo ceeb uusan ku dhalanin qofkaoo ilkahan soo baxay ka timid lagu hagaajinayo ama xanuun iyo wax jira lagu daweynaya dhibaato ma laha laakiin ilkaha inaan la qorqorin weye qayb waa la saari karaa laakiin ilkaha in la qorqoroo la dhuudhuuboo la yaryareeyo waalmutafallijaati lilxusni waay kuwii fanaxda samaysanaya iyo ilkaha kuwii qorqoraya kuwa xadiid gaara ku soo aroorayo lama ogola daawade halkan waa hilaal production haddii aad lagu cusub tahay fadlan lagu soo biir oo sabskribe saaro laagli iloo saar muuqaalka si uu u gaaro saaxiibo fara badan islamarkaana dad fara badan markaa ay uga faa'iidaystaan mahadsanid